wasiirka wasaaradda amniga maamulka Puntland iyo DDR Cabdisamad Maxamed Galan iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha maamulka Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad ayaa waxa ay faahfaahin ka bixiyeen shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Garowe ee maamulka Puntland dagaal khasaare sababay kaas oo dhaxmaray ciidamo ka wada tirsan maamulka Puntland waxaana dagaalka uu ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari wasiirka wasaaradda amniga iyo DDR maamulka Puntland Cabdisamad Maxamed Galan ayaa ugu horeyn waxa uu faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha sababay dagaalkan iyo sida uu ku bilowday. Diyaaradda ayaa waxay ka dhacday garoonka diyaaradaha ee Boosaaso waxa yimi ciidan ka tirsan ciidamada BCSF ciidamada Puntland kamid ah waxa ay yimaadeen garoonka iridiisa kadibna ilaaladii garoonka iyo waxay isku fahmi waayeen waxay damceen ciidamadaas inay garoonka gudaha u galaan garoonkaas iyo garoomada kale Puntland oo dhan waa ka mamnuuc in ciidamadu ay gudaha u galaan ama gaadiidkooda ciidamada ay la galaan gudaha anigoo wasiirka amniga ah markaan garoomada gelayo ciidanka ila socda iyo gaadiidka ila socdo oo difaac ah intaba waxaan kaga imaadaa dibadda garoonka arintaa waa u hoggaansami waayeen kadibna waxaa ka dhalatay in ay halkaas rasaasi ay ka dhacdo khasaarana uu ka yimaado marka halka waxaanu markii aanu ogaanay markiiba aanu ka howlgalnay inaanu arinta halka ku joojino ciidamadii la xiriiro amarna aanu ku siino khasaaraha dhacayna khasaare lagu darin xirihii ee ciidamadii ay ka yimaadeen halka yimi oo dabcan gudaha airportka galaan ay xirihoodii ku noqdaan wasiirka arrimaha gudaha maamulka Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in maamulka Puntland aysan ka warhayn diyaaradan oo la sheegay inay la socotay kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka oo siday shixnad gargaar ah saakay anagoo wax warahayn inay soo dhacday macluumaad sheegaya in diyaarad sida alaab gargaar ay ka degaysa magaalada Boosaaso runtiina xogtaas ay ku timid kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa amniga sida gaarka loo maamulo kuwa amniga Puntland ay yimaadeen airportka ayagoo la diyaarad baa imaanayso aan rabnaa inaan alaab ka soo dejino iyo muslimiin la socota adugu dadaal dheer kadib diyaaradaas si nabad ayay ku timid shidaalkeedana u qaadatay dibna ugu laabatay run ahaantii wadanka waxaynu wada ogsoonahay waxa ka jira xaalad abaar ah oo aad u baahsan Soomaaliya guud ahaan Puntland ay ka mid tahay meelaha ay aadka u saameysay waxa lagu jira xilli dadaal badan lagu jiro oo dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed meel walba la joogaba iyo dawladaha xubnaha ka iyo dawladda federaalka lagu wada jiro sidii dadka loogu gargaari lahaa xaaladda abaartana wax looga qaban lahaa arrimahaas oo muhiimadda ugu weyn ee dadkeena sida wax lagu gaarsiin karo ay tahay in coordination la sameeyo in la iska warqabo xiriir laga leeyahay sida dadka wax lagu gaarsiinayo ciidamo ka wada tirsan maamulka Puntland gaar ahaan kuwa BMBF iyo sidoo kale BSF ayaa ku dagaalamay afafka hore ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari dagaalka labada ciidan ayaa waxa uu salka ku hayay in ciidanka BSF ay doonayeen in garoonka diyaaradaha Boosaaso laga soo dejiyo diyaarad ay la socotay kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka Sacdiyo Xaaji Samatar iyo sidoo kale ciidanka Imaaraadka uu tababaray ee BMBF oo doonayeen in aysan diyaaradda ka soo degin gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso dhimashada 2 qof iyo dhaawacyo kala duwan ayaa la xaqiijiyay inuu ka dhashay dagaalka iskoorimaadka ah oo dhaxmaray labada ciidan ee ka tirsan ciidamada Puntland waxaana socda dadaalo lagu soo idleynayo dagaalkaas kuwaas oo ay wadaan isimada dhaqanka maamulka Puntland